kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Shaafina Tube ee ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa hanti qashinka ee lagu qariyay Jose Mourinho sanadkii 2005 aflagaadadii uu u geystay macallinkii hore ee Arsenal ee Arsene Wenger eegiisa uu u bixiyay Didier Drogba. waxa uu yahay magaca The Special One iyo sharaxaad aynu ka bixinayno muuqaal xayeysiin qosol badan oo uu sameeyay macallinkii hore ee Manchester United iyo Chelsea Jose Mourinho. inta aanan muuqaalka guda gelin haddii channelkeena Shaafina Tube uu kugu cusub yahay fadlan subscribe saar oo nagu soo biir riix gambaleelka digniinta si durbaba ay ku soo gaaraan muuqaalada xiisaha leh ee ka hadlaya ciyaaraha oo aan bartan soo gelino. like-na nagu dhiirigeli fikirkaadana inoogu reeb qaybta hoose ee commentiga. Jose Mourinho waxa uu duubay muuqaal xayeysiin qosol badan oo markaa uu ku maadaysanayay qaar ka mid ah waqtiyadiisii cajiibka ahaa ee muranka badnaa oo markaa uu soo maray intii uu ku guda jiray kubadda cagta. macallinkii hore ee kooxaha Chelsea iyo Manchester United ayaa ku maadaystay magaca uu isagu isku bixiyay ee The Special One ama midka gaarka ah. ka soo bilow magacaasi uu isku bixiyay dabaaldegii waalida ahaa ee uu ku sameeyay Old Trafford iyo xafiiltankii qaraaraa ee kala dhaxeeyay tababare Arsene Wenger. Jose Mourinho waxa uu diiradda Yurub saarnaa muddo 15 sanadood ah. haatan isagu waa shaqo la'aan oo wax shaqo ah ma hayo kadib markii laga cayriyay kooxda Manchester United bishii December. waxa uu diyaar u yahay Mourinho inuu isku maadaysto isagoo sameeyay haatan xayeysiin qosol leh. xayeysiintan ayuu inta badan Jose Mourinho waxa uu ku soo bandhigayaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee uu sameeyay intii uu ku jiray 15 sano kubadda cagta. muuqaalkan ayaana ka bilaabanaya isagoo Jose Mourinho uu akhrinayo wargeys uu ciwaankiisu yahay The Special One, waxaana dushiisa suran sawir isagoo ku dabaaldegaya garoonka Old Trafford markii uu ahaa tababaraha kooxda FC Porto sanadkii 2004 markaasoo uu Red Devils ka reebay koobka dhagaweynaha ee UEFA Champions League. intaas kadib waxa uu isagu leeyahay ma ahan wax sahlan inaad special noqoto ama mid gaar ah. ii ogolow inaan ku sharaxo. waxa uu dhex marayaa qol ay koobab ka buuxaan isagoo ka hadlaya guulihii joogtada ahaa ee uu ku gaaray Milan iyo Madrid. kadibna waxa uu leeyahay laakiin guulaha oo dhan laguma helo koobab. waxa uu eegayaa wargeys la soo jaray oo ciwaan ka dhigay Man United oo kaalinta labaad xaqiijisatay, taasoo tixraac u ah in Man United ay ku dhamaysatay kaalinta labaad ee horyaalka Premier League iyadoo 19 dhibcood ka dambaysa Manchester City kal ciyaareedkii 2017-2018. Jose Mourinho ayaa carabka ku adkeeyay inaan la iibsan karin in la noqdo special ama mid gaar ah ama mid qaas ah ka hor inta uusan daawadayaasha u sheegin inay kibirka iyo faanka iska daayaan. waxaana uu hadalkaas sheegayaa xilli uu jarayo geedo ama dhir ka samaysan 3 farood oo ah koobabka Premier League ee uu qaaday iyo saddexleydii koobab ee uu hal mar la qaaday Inter Milan sanadkii 2010. 3 far waxa uu Jose Mourinho u taagay Chelsea markii uu macallin u ahaa Manchester United isagoo xusuusiyay inuu 3 Premier League u qaaday halka uu isla isbuucii ku xigay u taagay 3 far kooxda Juventus isagoo u sheegay inuu Inter Milan 3 koob hal xilli ciyaareed la qaaday. Mourinho ayaa hadalkiisa raaciyay inaad special noqoto waa qasab inaad ixtiraamto sharciyada. qof dumar ah oo markaa nadiifisa ah ama adeegta ah ayaa ka soo horbaxaysa taasoo riixaysa haanta dharka lagu rido. waxay taasi xusuusin u tahay markii ugu horeysay ee uu Chelsea tababare ka ahaa oo Mourinho lagu soo riday haantaasi dharka lagu rido isagoo si dhuumaalaysi ah ku galay qolka labiska kulan Champions League ah oo ay ciyaareen sanadkii 2005 maadaama uu ganaax ku maqnaa kulankaas. Jose Mourinho ayaa intaasi kadib gabadha ku oranaya uma baahni maanta. tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa sidoo kale la ciyaaraya uu u bixiyay Drogba isagoo weydiinaya waa kuma wiilkayga specialka ah. waa sax aniga ayuu markaa ku sii daraya hadalkiisa. si aad u ogaato in eyga loo bixiyay Drogba
waxaad eegtaa weelka cuntada loogu rido eyga ama loogu shubo iyo magaca ku qoran oo ah Didier. Mourinho ayaa waxa uu garab marayaa armaajo ama qaanad ay saaran yihiin buugaag, isla markaana uu dhinaca kale ka yaalo baabuur bas ah oo gaduudan, taasoo la micno ah baskii ama difaacii uu gali jiray markii uu joogay kooxda Manchester United. buugaagta armaajada saaranna waxaa ka dhex muuqanaya oo ku jira buug la yiraahdo The Voyeur oo tixraac u ah waqtigii uu Arsene Wenger ku aflagaadeeyay inuu yahay dadka kale daaqadaha ka eega. Mourinho ayaa markaa kadib oranaya, runtu waxa ay tahay waxaan dhammaanteen nalagu garsooraa natiijooyinka. tababarihii hore ee kooxaha FC Porto, Real Madrid, Inter Milan, Chelsea iyo Manchester United ee Jose Mourinho ayaa waxa uu xayeysiintan u sameynayay shabakadda la yiraahdo Body Power oo markaa xayeysiinaysay game. waxaa intaasi inooga eg warbixintii aynu ku soo qaadanay xayeysiintii uu sameeyay Jose Mourinho ee qosolka lahayd iyo sharaxaadii aan ka bixinay sida haantii qashinka ee lagu soo riday sanadkii 2005 aflagaadadii Arsene Wenger haygiisa uu u bixiyay Drogba iyo waxyaabo kale. haddii ay ku xiiso gelisay warbixintan, fadlan nagu soo biir oo subscribe saar barteena si aysan kuu dhaafin muuqaalada xiisaha leh ee dhanka ciyaaraha oo aan bartan soo gelino. aragtidaadana inoogu reeb qaybta hoose ee commentiga. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.